qofka raba inuu madaxweyne noqdo oo tartamaya wuxuu madaxweyne rabaa inuu ku noqdo lacagtii ummadda Soomaaliyeed lahayd waxa xaqiiq waay lacagtii mushaharada dadka ay qaadan lahaayeen lama siinayo 10 bilood waxa lagu galayaa campaign xaaran ma dhashay moogta qofkii waa laga reenayaa lacagta lagu galo campaignada oo dadka waliba fadhiya xafiiska waa lacagtii ummadda ay lahaayeen oo loogu talagalay gabadhaas masaakiinta ah oo uur kale in lagu nafaqeeyo ilmaha shirka ah oo saqiir ku dhimanaya in lagu nafaqeeyo lacagtaas lagu galaa campaign waa dhaqan jira tan labaad oo Soomaali ka jirto waxay tahay qaran qabiil ninka qabiilkiisu dib ugu noqdaa wuxuu yiraahdaa tol hadaan nahay reehbel iyo meesha naga qabsanay lacag hal iyo aruriyo ganacsatada soo ordaysa marka ninka ay siinayaan lacagta ganacsatada nin ay raba inay qortaan ma aha markay businesskooda ka hadlayna laakiin waxay rabaan Soomaaliya dul dhigaan 12 milyan oo qof iyo rabaan dul saaraan qabiilka waa ka caayaa marka waxay siinayaan ninkii lacag marka taasna waxay ahayd wax jira oo dhab ah mid saddexaad lagu soo biirtay in qofku uu yiraahdo qabiil iguma filna waxooda xafiisna ma fadhiyo hadda oo aan wax ka qaato oo aan campaign ku galo dawladda ay caawinayso marka haye warqad cadaan wataay wax ku qorta idinkana halkaan iska fadhidaan jeebkiina waa idin xiran yihiin marabtaa inaad wax ku darsataan moogta ninkaasna dal hebel yu aaday dal hebelna Soomaaliya danu ka leeyahay warqadaas wax lagu qorayaa marka hadda wax leeyahay war ninkaan nin Soomaaliyeed ma ahayn muxuu wax u haleenayaa ma ninka wax ma haleenayo ummad kale u shaqeeyaa laakiin ninka idin ma shaqeeyo maxay yeelay idinku wax ku badarsan that's the fact idinku waxa rabtaa inaad wax la qaybsataan isaga isna wuxuu yiri ana waxaan shaqaystay maxay yeelay dawlad X yaa lacagtan isiisay waxay ku heshiiyeen adiga ma ogid midaan afraad aan bilawnay marka qaran marka waa mid xoog leh oo aan qabiil ahayn oo lacag umad laga soo xaday aanan ahayn dawlad X loo tagayo la leeyahay maxaa Soomaali ka rabtaan aysan ahayn oo ah waxaan isku tashanayno oo idinka aad leedihiin mashruuc aad idinka leedihiin oo hadduu khaldo qofkaas aad leedahay war ninkan inkaan Allah ku rido lacagtii caruurtii aan caanaha ugu gadaayo intuu qaatay iyo waxaan khalad sameeyay qofkii markii aad ka soo baxidna waxba ku leedahay wariyaa waxaygi aan ku siiyay waxba u sheegan kartaa laakiin nin umad kale ee kansatay waxba kuma leeyahay waxba kama sheegi kartid marka waxaan leeyahay waxay ugu darsada aniga waxay ugu darsada مشروعاً إذا كأسكله مشروعاً إذا كأسكله إذا كالذين شقينا يا عروتنا الله شقينا يا إذا كأسكله دالكاس دولة دي سنة إذا كأسكله وحقات لوجه الله وحلي راه دولة دي هبل دولة دي هبل دولة هبل مرة دولة إذا كأسكله 12 مليون أنا 1% عن هذين يعني بس هذا شن هلوا في عنتهاي بقول كيبا كنت هذا هلوا كسي في عنتهاي وحن هذين يا بقول كيبا هل 1% أو مشروع عن سكالي وماشي وجوه سيسوي لكن وحن هذين بقول كيبا بقول أنا هذين لكن مركي يقول لي دتو هدي أن وين بقول كيبا هل تدل مرة بنا مرك